السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxile waxaan hore u ballan qaadnay oo aan Facebook page-kan soo dhigay inaan ka hadli doono si kooban uga hadli doono websites-ka ama meelaha wax laga barto online-ka sidoo maanta insha Allah waxaan jeclaystay inaan bal wax ka idhaa ama idinka tuso 3 website oo muhiim ah oo inta badan wax laga barto sidoo aan hore u bilowno waqtiga yar awgeed uga faa'iideyno waxaan ku horeeynaa website muhiim ah oo la yiraahdo Alison dadka badankooduna yaqaanaa waxbarashada badankeedu waa bilaash wax laga yaabo in shahaadada lacag ku weydiiyo lacag aan badnayn markaas aad aragtaan wuxuu leeyahay diploma courses oo in haddaan ku dhigto wuxuu soo saaray waxa diplomooyin koorsooyin uu hayo One diploma in project management, diploma in business management and entrepreneurship, diploma in web design, diploma in human resource, diploma in psychology. qaar badan ayuu hayaa diplomooyinkiisu fara badan marka sidoo kale waxyaabaha waxa ka mid ah koorsooyin caadi ah marka dib u soo noqono koorsooyinka caadiga ah kuwa diplomada ku qoran tahay mooyaane kuwan koorsooyinka caadiga kuwan dabcan kuwaas diplomooyinkii baxayeen marka waxa kale jira list dhan ayuu ka soo dhigay all courses oo dhammaystiran anything aad u baahato insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka heli kartaa marka tusaale ahaan haddaan siiyo sababka la isku diiwaangeliyo waxa mid ka mid ah ayaynu dooran doonaa sida engineering oo kale marka engineering kaasoo kale u doorano haddii course yahay ama haddii yahay diploma okay waxaan doonaynaa inaan ogaano habka la isku diiwaangeliyo steps kala raacay dhammaantoodna waa isku wada mid marka kaasita engineering ayaynu doorano waxaan odhanayaa start course halkan keenay course information marka waad akhriyaysaa qofku muhiim ah akhrido waxaan doonaysaa inaad barato waxyaabo ka hadlayo learning outcome-kiisu muxuu yahay maxaa laga rabaa inaad barto at the end of the course markaan dhameeyo ka bacdi modulada waa inaad ka eegtaa ama syllabus-ka halku saa u taqaano module 1 2 3 qaar baa sii kala baxa oo sub-yeesha halkan kala soo fara badan ayuu leeyahay subtopics marka okay waqtiga uu kugu qaadanaya caadiga ah waa iska introduction-kani wuxuu kugu qaadanaya 2 ilaa 3 saacadood oo keli waxa bixinaya qolada open learner video male audio male assessment wuu leeyahay certificate-na wuu leeyahay waana free waxbarashadu 100% marka kaasoo kale aynu dooranaa markaad doorato waxaan odhanaynaa start this course aynu doorano okay course-kii bilowban wuxuuna keenay xaggee nagu soo celiyey course outline-kii ama waa course syllabus-ka ama soo taqaano halkan ayaa laga sign up garaynaya ama la iska register garaynaya halkan aad ku dhufanaysaa dad Google login leedahay ama Gmail hadaad leedahay Facebook-aaga hadduu kugu xiriirsan halkan tusaale hadduu Facebook-aaga kugu jiro halkan oo kale isma dhiibay sida Facebook un badanaysaa ayuu gelaya haddaydan labada mid haysanna ama aan isticmaalayna login ayaad oranaysaa deetana waxaad ku siinayaa mid email-ka ku register garayn karto caadiyan adoon labada mid aan isticmaalayn okay sida normalka ah
maadaama aniga uu gmailka ugu xidhiidhsay waxaan odhanayaa google login haddaan ku xidhiidhsanayna waan gelin doonaa waan ku tusi insha allah. si fudud ayuu galay account-kaygii waa kan courseska waxay registraysanataa 2 course certificate weli maan qaadan kana marka ay labaa. marka casharkii markaad sidaas oo kale u bilaabayso waxaad dooranaysaa topic ayaad ka dooranaysaa casharkii aad rabtay introduction to systems engineering data click markaan siiyo wuxuu soo dhigayaa platformkii dhammaystiran. marka waxoogaa baad la yara sugaa laannu waqtigu yara qaataa inuu soo dhigo sida caadiga ku ah. sida interactive-ka ayuu wax kugu dhigayaa casharadii salaam markaasoo kale aad ku dhufanaysaa uu soo dhigayaa leena outcome-kii soo dhigayaa markaa sida halum wajar markaas saasaad u yeelaysaa dhammaantood wada sidaas mooyaan. magaxan yeelanaa kaasi website-ka saasaan ku dhaafanaa Alison I love